labadii keliyooda maqan madaxna misaara loo faasa loogu dhuftay murugo iyo dareen aan wanaagsaneyn ayaa ka jira halkan kadib markii Saabir Xasan Sheekh Maxamuud oo 5 sano jir ah qoyskiisuna muddo ay baadigoobayeen isagoo meyd ah labada kaliyoodna lagala baxay la soo dhigay xaafad ka mid ah degmada Hodan ee gobolka Banaadir ehelka Saabir iyo dadka degan xaafadda la yiraahdo Buulo Eelay ee degmada Xamar Jajab ee isla gobolka Banaadir oo aad uga murugaysan waxa dhacay ayaana galabta aasay dhacdadan oo aan la ogeyn cidda geysatay ayaa ah mid naxdin ku beertay dadka deegaanka waxayna isweydiinayaan sababta kaliftay dhibaateynta saqiirkan aabbaha dhalay Saabir oo wajigiisu ay ka muuqato xanuunka arintan foosho xun lana yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud oo aaska wiilkiisa kadib la hadlay TV-ga Dalsan ayaa waxa uu sheegay in wiilkiisu uu ka maqnaa muddo ku dhow 16 cisho ayna ugu xigtay maqnaanshihiisa arintan naxdinta leh unugan wuxuu lumay waa sabtigi hadda aan soo dhaafan sabtiga 15 bari maqnaay maanta 16 ku tahay unugi adiga intaas markuu maqnaay intaas aan raadinay unugi maanta ciyaanteeda aniga hadda ma toosin karaa si lama filaan unugi loo galay marka kulley macnaa dargaas wixii ilaahay waa wixii qornaay dhaceen unugi xumniis wuxuu maqnaa labadii keliyooda maqan intaas maqan madaxna misaara loo faasa loogu dhuftay meesha laga halay waa CAD digfeer geeskis asoo meyd oo lugta macnaa koronto u xiran tahay 5 jir ahay xaafadu waa beri dhanka otoota kulumay Aabe Xasan ayaa inoo sheegay in loo sheegay in xarunta dambi baarista ee CID-da ee magaalada Muqdisho lagu hayo rag uu sheegay in halkaas ay geeyeen meydka Saabir dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayuu ugu baaqay in baaritaan degdeg ah la sameeyo si cadaalad loo horkeeno dambiilayaasha falkan foosho xun geystay nimankan hadda ilaa aan hadda ma arkin waa la qabtay leeyahay oo CID-da cunugaada macna meydkiista la anoo maana dargaas ay joogsiinay isgooskiisina joog intaas maqlay markaan imaadeen macna si lama filaan waxa wiligay aan arkin 45 sano jira aan ku arkay waa nimanka meydka keenay la sheegay dawladdu waxaan ku dalbanaa in unugaasi macna dargaas ay baaratin dadaal weyn aan ka dalbanaa in macna dargaas meel badan aan ku tuhumayo unugeega macna dargaas unugay 500 unuga meesha joogeen waa iskoolka Maxamuud Mir maalin walba banooni laga ciyaara waa meel dad badan oo mujtamac waay unugay calaamad su'aal ma saarnaa kulli qof xaasid ee meesha ku wada unugan saa u galay in si aad macna unug leeg baaran rabaa dhacdooyinka argagaxa leh ee la midka ah midda qabsatay qoyska Saabir ayaa ah dhacdooyin xanuunkooda wata oo mararka qaar ka dhaca magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka iyadoona ilaa haatan aan la ogeyn cidda sida rasmiga ah falkan u geysanaysa dhinaca kale xiriir aan la sameynay xarunta dambi baarista ee CID-da nooma suuro gelin si arintan aan wax uga ogaano Maxamed Cabdi Xasan Iidle idaacadda telefishinka Dalsan Muqdisho